أسلوبتي أياهان كوعن إلالية بطلان فرديد عيب شعب كان وأليق وكتوغان النهي إذا ماذا أسلوبتي أياهان كوعن إلالية بطلان فرديد عيب شعب كان وأليق وكتوغان النهي أوامرتي دير أمرك يا احتراها من مدح سوان وفيني شرعيها كذا وكبوي أوامرتي دير أمرك يا احتراها من مدح سوان وفيني شرعيها كذا وكبوي هاي أسكاري أرقق حسديو أمني ديهد كتالكو أروهوريو أنا وابيلينك يا أبي بدن وحانا هاي أسكاري أرقق حسديو أمني ديهد كتالكو أروهوريو أنا وابيلينك يا أبي بدن arrimaha sirdoonki xaajadag كهره لغو آمني عيدنكي لو إدماذا يو افتنشان النهاي arrimaha sirdoonki xaajadag كهره لغو آمني عيدنكي لو إدماذا يو افتنشان النهاي لأنه واضح ركتاب مدحوينه أنا قو راعي إن تصالحاقي عيدك ما تمشي مرة واضح ركتاب هذه عاد بالله عيدك كاسي وحي لوبه إحنا وقفتي وحي اللي برينا والله قارك دونه هدي الله يدمو الله بشوي وشروعها والله بري هدي ديسيبلين تهي هدي حقوق البني آدم تهي هدي تهي دولة ودنك هدي تهي إلالينتا عيدك كاسي ديار وحو يهي دفاع دلك وحو ديار يهي وحالله وحي قبل حقب الله وهلنا هاي وعيدا ديار وهماشي اللي وهو القليبة عيدا كأسلوبته وتوبركيسي ما أنت الله سوى قبقبين أيوه فروتان كيسنا هلك أنا سقولنا من دوحة مقاطن التيجوين وحنوما هالعلنا يا دمان انتي كقيب قادتي إنو هيرقلو توبركان ويقوه الريان saraakiisha ciidanka asluubta gaar ahaan dugsiga tababarka asluubta macallimiintii iyo dadkii diyaariyey ciidanka muhiimaddan weyn leh waad ogtihiin amnigu waa wax isku xiran in dambiilaha la soo qabto hadduusan helin meel lagu ilaaliyo ama looga jaro xaqii lagu lahaa bulshadii ayuu dib ugu noqonayaa oo fasaadkii ayaa sii badanaya ciidanka asluubtu kaalin weyn ayay waxay u hayaan bulshada Soomaaliyeed gaar ahaan reer Puntland way ku amaanan yihiin shaqooyinka quruxda badan ay soo qabteen waxaan u rajaynaynaa in ay sii laabaan oo ay ka sii kor qaadaan heerka ay hore hadda joogaan dulduleelada waqtigu keenana la awdo lagu oodo jiil cusub dhalinyaro cusub adkaysi iyo aqoonba huwan si waajibaadka ummadda ay u hayaan ay u gutaan dalkeennu wuxuu ku marayaa marxalad soo gabasho ah guud ahaan geyga Soomaaliyeed aafada ugu weyn ay jirto waa dhinaca argagixisada
oo waayadan dambe runtii deegaanadii ay muddada dheer fadhiyeen la arkayo in shacabkii iyo dowladdii dhammaan loo qalab qaatay sidii la isaga qaadi lahaa cadowgaas. waxaan halka hambalyo uga dirayaa dowladda galmudug iyo ciidamada federaalka ah ee dhowaan magaalooyinkii muddada dheer ay haysteen ay ka mid Xaradheere ka saaray. waxaan u rajaynayaa dhammaan bulshada iyo ciidamada qaybahooda kala duwan Soomaaliyeed inay meel uga soo wada jeestaan ciribtirka iyo la dagaalanka argagixisada si dalkani xuquuqda muwaadinka Soomaaliyeed uu ugu naaloodo ammaan iyo deganaansho. runtii haddaanan laga xoreyn meelaha ay haystaan al-shabaab dowlad dhiska Soomaaliya waxay noqonaysaa caqabad ku taagan oo in hore loo dhaqaaqo ay aad u adag tahay. waxaan rajaynaynaa meelaha ay ku hareenna iyadoo dhammaan bulshada Soomaaliyeed iyo dowladdu iskaashanayso in dhammaan deegaanada kale ay ku jiraan oo dhan meel looga soo wada jeesto jabtarkaasna ilaahay idankiis dhowaan la soo xiro. sharciga iyo kala dambeynta in la dhowro ayaa dardaaran noo ah. wixii nili baray inaad ka soo dhalaashaan ayaa dardaaran noo ah. hay-adaha kaleetee ammaanka ka shaqeeya iyo sharciga wada shaqayntoodu inay noqoto shay joogto ah. haddii sarreynta sharciga iyo fulinta sharciga uu noqdo astaan iyo shaqo aan qabanay dowladnimada Puntland waxay yeelanaysaa dhidibba adag oo aan la loodin karin oo cidna aysan isku dayi karin ama argagixiso ahaato ama cid kale ahaato. ciidamada Puntland meel kasta ay joogaan maadaama xaalada adag lagu jiro duruufo kala duwan iyo colaado midabo kala duwan la ay muuqdaan waxaan rabaa halka inaan ka wada faro dhammaan qolo walba goobteeda inay heegan ku gasho xaalad kasta oo suuragal ah oo dalkan kusoo foog lahaatana si degdega looga jawaabo. waad mahadsantihiin. wassalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu.